Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waqti wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo xilli kastoo aad idin tahay. Kusoo dhawaada casharka 18aad gaar ahaan qaybtiisa koowaad oo aynu ku eegayno further examples about plural nouns. Waa further examples tusaalooyin dheeraad ah about oo ku saabsan plural nouns magacyada jamaca ah. Casharka 18aad gaar ahaan qaybtiisa labaad laba qaybood ayaynu u kala qaadnay qaybtiisa koowaad iyo qaybta labaadba isla casharkan ayaynu ku qaadan doonaa. Marka qaybta koowaad waxaynu ku qaadanaynaa further examples tusaalooyin dheeraad ah about oo ku saabsan plural nouns magacyada jamaca ah. Casharka ugu dambeeyay waxaynu kusoo qaadanay sida magacyada jamaca looga dhigo iyo dhowr qodob oo ay tahay in la raaco marka aad doonayso magac mufrad ah in aad ka dhigto wadar ama jamac. Iminkana tusaalayaal dheeraad ah ayaynu si guda gelaynaa. Marka hore aynu ku bilowno singular, qaybtan waa mufrad, qaybtana waa plural jamac, qaybtana waa examples tusaalayaal. Marka dish waa saxan, waa hal saxan. Okay, dish waa hal saxan. Okay, jamac markii laga dhigayo maxaan isku ogeyn haddii u dambayso sh in lagu daro es. waa kaas markaysaa dishes saxamo. Okay, dishes saxamo. Dish waa hal saxan. Si jamac aan uga dhigno waxaan isku ogeyn magacyada ay u dambayso sh in lagu daro es si jamac looga dhigo. Dish hal saxan, dishes saxamo. Example tusaale ahaan, you have to wash waa inaad dhaqdaa the dishes alaabta saxamada. You have to wash waa inaad dhaqdaa the dishes saxamada waa inaad dhaqdaa. You have to waa inaa. Have to waa maxay? Waa inaa must wax waajib ah. Okay, you have to wash waa inaad dhaqdaa the dishes alaabta. Okay, bas waa baska caadiga la raacay. Qodobadan soo barna waxaa ka mid ahayd markii s u dambayso sidoo kale in lagu daro es in lagu daro si jamac looga dhigo. Bas waa hal bas, basisna waa basas badan. Okay, waa basas badan. Jamac waxa uu noqon karaa labo iyo wixii ka badan. Hadda tiro laguma sheegin laakiin basasku inay laba ka badan yihiin ayaad ogtaa oo ay jamac yihiin, wadar yihiin oo hal ay markaas aysan ahayn laakiin laba iyo wixii ka badan ay yihiin. The city magaaladu waxay leedahay many buses basas badan ayay leedahay. The city magaaladu waxay leedahay many buses basas badan ayay leedahay. waa hal s halkan. Okay, laba s maaha, s kale ma jirto, waa erer ama qalad. The city magaaladu waxay leedahay many buses basas badan ayay leedahay. Torch waa tooshka caadiga oo la ifsado. Waa tooshka caadiga oo la ifsado. Okay, ch hadday u dambayso sidoo kale maxay ahayd in lagu daro es in lagu daro si jamac looga dhigo. Torch waa hal toosh, torchesna waa tooshash. How many torches imise toosh in ayaa ku jira the kartoonka ayaa ku jira. Okay, how many torches imise toosh in ayaa ku jira the kartoonka. Okay, fly marna ficil ayay noqotaa oo waxay noqotaa duulis, marna waa magac oo tixsi ayay noqotaa. markaan waa magac fly tixsi. Okay, qodobka wuxuu inoo sheegayaa haddii y uu ku dhammaado magacu si jamac looga dhigo haddii y-da consonant uu ka horeeyo sida l oo kale. hadda y-dan maxaa ka horeeya consonant l. Okay, haddii y-da consonant uu ka horeeyo in y-da meesha laga saaro kadibna lagu daro es lagu daro inta kale. fly hal tixsi, flies tixsiyaal. Okay, fly hal tixsi, flies tixsiyaal. Example, some seasons xilliyada qaar there waxaa jira many flies tixsiyaal badan ayaa jira. Some seasons xilliyada qaar there waxaa jira many flies tixsiyaal badan ayaa jira. Tusaale ahaan magaalooyinka xeebaha ku yaala oo kale markii malaayga xilligiisa la joogo malaay badan suuqa la keeno oo uu jiro oo kalluumaysato malaay badan ay keenaan tixsiguna waa u bataa xilligaas. Okay, city magaalo waa hal magaalo. Jamac si looga dhigo maxaan isku ogeyn in consonant ayaa halkan ka xiga oo y-da consonant ka horeeya in y-da la tiro kadibna lagu daro es. cities magaalooyin. city magaalo, cities magaalooyin. Mogadishu is one of the waa mid ka mid ah largest cities magaalooyinka ugu waaweyn. Mogadishu is waa one of the mid ka mid ah largest cities magaalooyinka ugu waaweyn. Mogadishu magaalada Muqdisho is one of waa mid ka mid ah the largest cities
magaalooyinka ugu waaweyn largest ugu waaweyn cities magaalooyin. Okay, play waa markaan play marna waxay noqotaa ciyaarid oo sida kubadda oo kale marka la ciyaarayo, marna waxay noqotaa magac oo waxay noqotaa riwaayad. Okay, plays riwaayado. Okay, plays. Okay, why aan sababtee ayaan u tiri weynay why-da oo esta aan ugu darnay oo sidaan oo kale ies aan ugu dari weynay, sababtu maxay tahay? bal 3 second ka fikir. Okay, waxay ila tahay in aad garatay sababta aan u tiri weynay oo esta kaliya aan ugu darnay waxa weeye why-da vowel ayaa ka horeeya oo sidaan oo kale consonant kama horeysa t iyo l. why-da haddii vowel uu ka horeeyo s ayaa lagu daraya, waxba lama tirayo. why-da haddii vowel uu ka horeeyo si jamca looga dhigo plays s unbaa lagu daraya. He wrote wuxuu qoray 4 plays 4 riwaayadood ayuu qoray. He wrote wuxuu qoray 4 plays 4 riwaayadood ayuu qoray. riwaayadaha waa la qoraa, markaas kadib ayaa la soo bandhigaa oo masrixiyad ama maslixiyad lagu sameeyaa. casharkii 18aad ayaynu weli ku guda jirnaa, qaybta labaad ayaynu u gudbaynaa. qaybtana waa 2 exercises 2 exercise ayay ku saabsan tahay. qaybtana waxay ku saabsan tahay 2 exercises 2 exercise ayay ku saabsan tahay about oo ku saabsan how to make sida loo sameeyo plural nouns. waa 2 exercises 2 exercise about oo ku saabsan how to make sida loo sameeyo plural nouns, magacyada pluralka ah ama jamca ah. Okay, exercise 1 exercise koowaad, 2 exercise midka koowaad waxaa lagu yiri write qor a plural jamac qor to describe si aad u tilmaanto each picture sawir kasta. waxaa lagu yiri write qor a plural waxaa qortaa jamac qor to describe si aad u tilmaanto ama u qeexdo each picture sawir kasta. write waxaa qortaa a plural jamac qor to describe si aad u tilmaanto ama u qeexdo each picture sawir kasta. Okay, tii ugu horeeya ayaa lagu sameeyey. halkan waa qalin qoryaal oo jeeda qalin qoryaal. qalin qoriga waxaa la yiraahdaa pencil, halka qalin qoriga waxaa la yiraahdaa pencil. markii jamac laga dhigayna s ayaa lagu daraa. oo haddii magacu uusan ahayn 7 xaraf, haddaysan u dambeyn mid ka mid ah ama aysan y u dambeynin oo consonant uu ka horeeyo, inta kale waxaa ku daraysaa magacyada s ayaa ku daraysaa si jamaca uga dhigto. Okay, qayb irregular la yiraahdo ayaa jirta, qaybtaas kama hadlayno. laakiin magacyada caadiga kuwii 7 xaraf u dambeeyay hadday kula soo kulmaan sida s iyo ch iyo sh, kuwa 7 xaraf u dambeyso haddii aad la kulantid si jamca uga dhigto es ayaa ku daraysaa. haddii aad la kulantid magaca u dambeyso y oo consonant uu ka horeeyo i iyo s ayaa ku daraysaa, y-daa tiraysaa. magacyada inta kale ee soo hartay s ayaa ku daraysaa. marka pencil waa qalin qori, s ayaa lagu daraysa jamca looga dhigo pencils. Okay, lambarka koowaad ee laga rabo inaad ka shaqeyso waa clock. Okay, waa watch. Okay, watch way watch. Okay, waa saacad. marka adaa laga rabaa inaad jamca ka dhigtid watch. Okay, waa arkaysaa meeqa saacada meeshan taalo. Okay, kana waa book. Okay, waa book. marka jamca laga rabaa inaad qortid. Okay, kan waa sandwich. marka adaa laga rabaa in jamciisa aad halkaas ku qorto. kana waa brush. caday oo jeeda cadayga lagu cadaysado ee boomaatada la socda. brush caday. halkaana waa mirror muraayad. Okay, halkaana waa apple tufaax. halkaana waa key fure. halkaana waa mobile. marka 8daas eray ayaa laga rabaa inaad soo qorto oo jamac ka soo dhigto. Okay, saacado ayaa halkan kusoo qoraysa. halkaana buugaag. Okay, halkaana sandwichyo. halkaana cadayo. halkaana muraayado. halkaana tufaaxyo. halkaana furayaal. halkaana mobaylo. jamac ayaa laga rabaa inaad kasoo dhigto. Okay, sida tusaalaha lagu siiyey halkaasna waad fahamtay. waynu ka gudbaynaa, waad kasoo shaqeyn doontaa insha allah. exercise 2 exerciseka ugu dambeeya fine waxaad heshaa 8 plurals 5 magac oo jamacya hel 5 plural hel 5 jamac hel in oo ku jira
the grid okay square kan and write them waxaana u qortaa in groups kooxo kooxo ama qayb u qor maxaa lagu yiri exercise 2 find waxaad heshaa 8 pluralis 8 jamac in oo ku jira the grid square kan and write them waxaana u qortaa in groups qayb u qor ama kooxo halkan ayaad saas u fiirinaysaa magaca jamaca ayaa kasoo raadinaysaa magacaas jamaca haday s u dambayso halkaana ku qoraysaa haddii magaca jamaca oo halkan aad kasoo heshay ies u dambaysana halkaana ku qoraysaa haddii magaca jamaca oo halkan aad kasoo heshay ies ay u dambaysana halkan ayaad kusoo qoraysaa sidaas ayaa u kala kooxaynaysaa waana saana waa usoo calaamaynaysaa xabadda ugu horreeyey waa lagaga shaqeeyey oo kan ayaa la calaameeyey oo waxa uu noqday apples tufaaxyo okay s ayaa lagu daraa apple ayay ahayd si jamac looga dhigo s ayaa lagu daraa halkan ayaa lagu soo qoraa marka s bis ayaa lagu daraa haddii es lagu darana halkaana kusoo qoraysaa erey haddii ies lagu darana halkaana kusoo qoraysaa 8daas xabaa lagaa rabaa marka waa 2 oo s u dambayso iyo ilaa halkan xabaddan waa laga shaqeeyay waxaa lagaa rabaa 2 magac oo s jamac looga dhigayo in halkan kasoo hesho halkan kusoo qorto dhinacana waxaa lagaa rabaa 3 magac oo es jamaca looga dhigayo inaa halkan kusoo kala qorto 1 2 3 halkan waxaa laga rabaa 2 magac oo ies ay u dambayso oo jamaca looga dhigayo in aad halkan kusoo qorto halkan ayaad ka raadinaysaa saasna usoo calaamaynaysaa okay halkan waad arkaysaa apples okay saas u fiiri isku day in aad kasoo shaqeyso bal hal xabo kale aan iskala shaqeyno okay halkan ee watches okay halkaasuu ku ekaanaya watches waa saacado maxay ahayd awal watch hal saac ay ahayd saacad kaligeeda watches marka saacado laga dhigana es ayaa lagu daray marba haddii ch ay u dambayso maxaa jamac looga dhigaya es marka waxaan soo helnay magac kale oo jamac looga dhigay es halkaana ku qorayna okay marka waa lagaga shaqeeyey kan waa kaaga shaqeeyey waxaa lagaa rabaa 6daas xabo kale inaad ka shaqeyso 2 ay u dambayso s inaad halkan kusoo qorto 2 jamac looga dhigay s inaad halkan kusoo qorto 2 es jamac looga dhigay inaad halkan kusoo kala qorto 2 ies jamac looga dhigay inaad halkan kusoo kala qorto halkan ayaad ka fiirinaysaa waxaas oo dhan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa casharkeenii 18aad oo aynu markaasi ku eegnay tusaalooyin dheeraada oo ku saabsan pluralka iyo sidaasoo kale 2 exercisena aynu isku dirnay oo aynu iska sugayno inta casharka xiga aan la gaarin aad baad umahadsantihiin nabadgelyo ardayay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee ardayay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee